السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قيمة له أو information أيان هالكن ينكو دياري ولي كوسابسن DV lottery. نمبر 1 وحسكو ده إذا هرت فيديو جنا لما يستان وفيرستان سببته ما دام وقت اللي سوق لي فيديو بلو إلى دمات فيرسو فيديو إنه هنرا مركز سكوا ونن كجهله سؤال شاد آد يسوي ويديسين إن أنتابت أو هيد work experience سانكو هلنا مساني هلنا برنامج دير أو دحلقة أو إذا أنفعان ربنا كسو دياري برنامج كاس وحبا دق أنا كسمعين حداد ولي أبلاي جرينينج إسكاي رسوق برنامج دير بان كسو ديارنا يا برنامج كمركز فانتو ولو هذا إيشان كو حرناين إن آد برنامج كاز آد كو قرطو واك إكسبيرينس اللي هاد كوما قصبنت حرايسو واك إكسبيرينس كده جيسي مركا واك إكسبيرينس و very important حتى هذا هاي سكول هيساتو و very important مركا واك إكسبيرينس كهال دونا فيديو وحن كهال دونا أرن آد إيه نحدين قليبريان oo ka cabsaday dadkii in la haagareeyo oo sistemadoodii lala wareego sababtoo tahay waxaan arkay meelaha commentiga dad soo galayo oo leh ana idin caawinaya ana iimaada waliga qof aad aqoonin oo online ku aragtay ha aaminin wax ay caawina hadeen link yar lagu soo diri karaa waana lagu rinadi karaa aan aad ugu fiirsaday bariyahan dambe oo ah in meelaha oo dadka ay fariimaha ku soo gudbiyaan TikTok ama YouTube-ka dadka qaar ay leeyihiin annaga idin caawinayna markaad profile-kooda fiiriso dadka qofka la iskama aamino adduunka maanta la joogo oo teknolojiyada adigoo meel walba joogo lagaga xadi karo wax la rabo laga xadi karo si fudud dadka u aaminina number 1 waxaan arkay TikTok-ana ku arkay nin leh ana idin caawinaya waan tagay profile-kiisi waxa u saaran sawir Soomaali xitaa ahayn فيديو kala duwan oo wuxuu soo galiyay meesha ay Soomaali leedahay oo dad far badan oo kale ay duubeen marka fraud baa jira Soomaaliyeey waliba xilligan DV lottery-ga aad baa dadka loo gaadaa videogii ugu horeeyna waan idin sheegay yaa la idin gaadin baan idin ku yiri sababaha keenaya inaan aad idinku ku sharaxo barnaamijkan oo idin dhaho nin walba isaga samaysan karana waa saas sawirka haddaad rabto inaad hagaajiso wiilasha aad taqaano cyber cafe-yada ku leh magaalada aad joogto u tag ila caawiya dheh laakiin ruux online aad ka aragtay oo profile aan lahayn wajigiisa aan muuqanin aanan la garan karin meesha qofka uu ka imaaday inaad iska aaminto daada sawir ii soo samee ama form ii samee ii buuxi oo information-kaaga iyo detail-kaaga aad siiso waa arrin aad halis u ah iska ilaaliya cidna detail-kaaga si fudud ha ku siinin sawirkaagana ii soo samee cidna ha dhihin waliba aadan aqoonin ood online-ka kula kulantay sababtoo tahay adduunka maanta jira waxaa lagu soo diri karaa link yar oo lagu leeyahay linka sawirkaagaan kugu soo hagaajiyey furo ama barnaamijkaasaan kuu sameeyey furo markaad linkiga furtana lagaa xadi karo wixii kugu jira marka taleefanka wax hadda oo aan isleeyahay fara badan oo laga xadaayo laba arrin baa jirta kow information-kaaga in la xado waa muhiim magacaaga meesha ku dhalatay waxaas oo dhan waa muhiim in la xado number 2 waxaa muhiim ayadana ama macquul ah in lagaa xado haddii lacag taleefanka uu kugu jirto ama bank account ay kugu jirto taleefankaaga oo lacagaha aad kala socoto bangigaaga ama sida hadda dadka jooga Kenya oo kale M-Pesa dadka M-Pesada haysta lacagaha M-Pesa ugu jirto ama account-kooda lacagta ugu jirto haddii link lagu soo diro oo linkaas aad furto waxaa laga yaabaa in la access gareeyo wixii taleefanka kugu jiray oo dhan dhamaantoodba marka it's not an easy in qof aad aqoonin online aad kula kulantay link intuu ku soo dir linkiga furato it's not wax easy number 2 su'aasha aad u soo noqnoqotay asxaabta ay aad u daneynayaan ama u xiiseynayaan waan ku maqanahay su'aasha waxa weeye ayadana work experience dad fara badan oo waxa jira aan school soo dhameynin oo work experience raba inay ku aadaan ku helaan visa lottery-ga markay helaan kadib ay dhahan work experience baan leenahay iyaduna qualifications iyo waxa la iska rabaa wax cadayna macnaha work experience la inta dhadahay lagu ma dhahayo cadayn baa laga rabaa marka I'm trying to research and investigate qaabkii cadayntaas aan iskugu toosin lahayn oo qofkii maxaa la jiray markuu dhaho high school ma haysto laakiin cadayntaas aan haystaa uu u heli lahaa DV lottery visa because markaad ku guuleysato is not the end markaad apply garayso guuleysato lagu dhaho dad portal-ka may ka fiiriso lagu dhaho waad guuleysatay macnaheedu ma aha everything is okay soo bax diyaaradda lagu saaraya ma aha markaad guuleysat kadib formankii visa lagu apply garanayd buuxin doontaa
interview waa lagu ballami doonaa su-aalo badan iyo howl badan oo kala harsan haddaad guulaysato oo ilaahay kugu talagalo marka in the meantime waxyaalaha aan ku talina waxaa kamid ah waan soo diyaarinaya barnaamijkaas work experience waan soo diyaarinaya barnaamij fiican oo dhaxalgala oo hadhow haddii aad u baaxata hataa interviewga xilligiisii aad dhihi karto aniga you know what high school baan haystaa haddana work experiencegan aan leeyahay because waxaad ogaataa ugu dambeyn meeshan wax la rabo waxaa weeye ruux markuu tago Maraykan shaqaysan kara oo isdabari kara marka luqad iska sii dhis muxuu ahaa work experience-gaaga iska dhis adoo dhisan maalinka interviewga lagugu yeero inaad tagtaa lagaa rabaa dhahdo you know what high school waan dhameeyey waxana waan aqaanaa waxaan ka shaqeeyaa background-kayga waa saas marka intaasaan rabaa inaan kusoo koobo barnaamijka hala fiirsado waxaad arkaysaa qof barnaamij dhan baan diyaarinaya oo time fara badan iga gelayo ruuxu wuxuu fiirsanaya daqiiqada ma 2 daqiiqo ugu horeyso su'aal buu ku weydiinaya marka su-aashin waxaa laga yaabaa inaad videoga intiisa dambe kaga hadashay marka fadlan videoga hala fiirsado su-aalaha waa very important like-ta iyo share-kan waa very important haddii kale videoga dad badan ma gaarayo marka like iyo share ha lagu sameeyo asxaabta halala wadaaga keligaa ha ka faa'iidaysanin dadka walaalahana uga faa'iiday videoga oo iyaguna gaarsii u share garee gruubada ku dir marka saasaan rabaa in la yeelo videogana la wada fiirsado wixii su-aalana markaad fiirsato videoga oo videoyo badan oo sameeyna aad fiirsato wixii su-aal ka soo baxda halkaas aan sugu imaano marka khayr badan baan idin rajeynaya subscribe hal saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu